السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلي والكن مهدي ميعاد مدة رمضان بان كلام مغني بانو ملايليا ساد صورة وكو aragteen cimradaan joogay haddaba markasta oo aan magaalo kale ama meel kale aan tago waxaan jecelahay inaan dadka la wadaago waxyaabooyinkii aan halka kala kulmay marka sidii mar horeba aad ku aragteen mar Hargeysa markaan tagay Soomaali waan walnahay laakiin marka la hadlaysid af Soomaali marka qofka ku hadlaysid kelmadaha isticmaalaysid si kale ayaa loo macnaysan karayaa video hore ayaan ka sheekeeyay inaan wala huuno iyo inaadeer iyo waxa Soomaaliyan inuu waxa dhici karta Hargeysaan aad isku faham weydaan laakiin iyagu marka aad nin iyo nin marka aad tiin ay kala duwan tahay oo iyagu huuno san mar hore ku soo sheegayba waxa dhici karta in gabdhaha u isticmaalaan haddaba markaan aan xaramka joogay Makka Soomaali Maxamed meeshay doontaba ka timaade eg original ha ahaadaan Hargeysa Muqdisho Boorama Ethiopia Kenya Burco intaas oo dhanba Soomaali fara badan waan wala kulanay marka waxyaabooyinka Soomaali fara badan oo aad meel saalas kugu imaado way adag tahay inaad aragtid ilaa adigoo wadan kale taga oo wadanka kale meel cafeteria ama meel community ay leedahay aad school timaadiin mooyaane laakiin way adag tahay inaad wadan dhexdiisa Soomaalidan ama Djibouti inaad ku aragtid intaasoo maxay Soomaaliyeed oo meel isku yimaada haddaba waxyaabooyin aan anigu la yaabay anigaan Mahdi Miicaad ayaan rabaa bal bulshada kale ee Soomaaliyeed ee daawanaysa ee afkayga fahmaysana bal inaan la wadaago horta xaramku sanadii hore uu ka lacag badnaa uu ka kharash badnaa waayo covid-kii baa dadka dhibaateeyay marka iyaguna imaka loo yimiday iyaguna waxay rabeen labadii sanadood ay fadhiyeen ay rabeen dadka inay intii khasaare ka saareen laakiin haddana tahay dadkii ka mancin ninkii doonayay inuu khayrka ka soo qayb galo Soomaali fara badan Allah ka abaal mariyo dhamaantooda miirna عماشينا صالحات كان دمانتي هاي نجوا الأبال مريه صومالي فربضن ويتم دبيعيد حتى ريجي وتي فربضن ويتجين هذا بس صومالي بركة عاد ماشي الاسكوي مادو ويريد والله قضي أما الله بقى أيان أركي مقدشو دايركت الأوجي مدي لكن صومالي ده أوجو فربضن وحي أهيد صومالي قربات صومالي ده كنول ودما ده قربها كنول أيوة لهاي haddaba anigu imanka kelmadaha aan la yaabay waxa kamid ah Soomaali kasta markaad iska soo horbaxdaan laba kelmood hadaad isweydaarsataan anigu waxaan jeclaa inaan qofka ku yiraahdo ma Soomaaliyeed ka soo xajiday mise qurbaad ka soo xajiday markaasan anigu isagoo i weydiin ma koona ninkana waalkiino Mahdi Miicaad oo reer Djibouti baan oranay haddana qofka taay kumay fileen yani aniga waxyaabooyinkii iga yaabi waxa kamid ah qof maraad ku taa reer Djibouti baan ay kumay fileen waxayna ugu fileen wax weeyaan kelmadda kale ku siixito wuxuu ahaa qolama tahay qoladaadu waa ay marka kelmadda qolama tahay anaga ahaan Djibouti qofka haduu joogo si kale waad u weydiin kartaa qoladiisa laakiin si cadaana inaad uga tiraahdid qolama tahay anaga waa laga yar fiican marka Djibouti la joogo oo dadka isticmaala sidaasi waxaan u naqaanaa yani ama qof dadka waaweyn oo kale oo laakiin qof dhalinyar ah qof middle age age ka dhexdhexaadka ah waxaas inay isticmaalaan way anaga han Djibouti way yara adagtaa laakiin Soomaalida waxaan ku arkay waxay ahayd qofku intuu doono ha leekaado ama da yaraado ama ha weynaado wuxuu ku ornay hayd kelmadda qolamaad haddaba kelmadda qolamaad tahay waxa weeyaan waa laga fiican yahay baan isleeyahay anigaan maanta waxa weeyaan Soomaali maanta waxa dib u dhigay Allah soo kabe horta san anigu isleeyahay shakhsiyan horta cadow shisheeye oo rabin inay Soomaali degto waa koow horta oo maanta Soomaaliya sida igu maqalka anigaan waxay ahayd Soomaaliya dhamaan ka wada hadlaya yani anoona kala qaadin wadanka adduunka ugu horeeya ee muuska
ama mouse Soomaali horta muuska maxaa la yidhaha horta mouse bay yidhaahdaan dadka qaarkood baan malaha umaanaya inkastoo mousku baalkiisu baalki yaraa clavier mise suuriga lagu isticmaali baalkii banana Soomaaliga ugu yara adag yahay af Ingiriisi aan ku sheego muuska anagu saan naqaano wuxuu ahaa wadankii ugu horeeyay export ka sameeyay wallahi macluumaadka aan hayo inay khalatayn kala garan maaye waxa kale igu maqalahayd hubka hadii la eego wadamada Afrika mise wadanka Carabta marka la eego malaha Ciraaq baa ku horeysay baa la oran karaya waxyaabooyin caynkaas marka wadankii de halka gaarsiisanaa inuu maanta soo kaco wadhici karta awoodo dibadeed oo siyaasadeed oo sheeya inay horta u diidiyaan waa suuragal ta kale ee labaad ee anigu isleeyahay waxa weeyaan waa mid dhexda ah ma asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum ayadii quraanka yani masiibo markay inay qabsato waxaad gacmihiina geysataan oo maanta tan la isa maxay qabiilka la isku kala qaadayo oo nin kastaba u haysto inuu ninka kale ka wanaagsan yahay nin ayaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa Sulaymaan la yiraahdo may Saleebaan dheh anagu Sulaymaan baan rahay oo reer Ingiriisiga ayaa taariikhda Soomaaliyeed wax fara badan iiga ifiyay xataa waxa uu macneeyay kelmadda 4.5 aan waliga maqli jiray laakiin ma garnin ina qabiil idil 0.5 laga dhig oo kuwa kale 1 ay iska dhigeen waa yani waxyaabo yaabeen aniga wallahi inta aan maqal hadda waxa dhici karta inay Carti iyo Soomaaliya waxa Djibouti waxa lagu sameeyay laakiin waxa maan si fahansaneen laakiin ninka ay Allah ka baal mariyo way macneeyay marka waxa iyo kelmadan qoloma tahay waxyaabooyinka ugu yaabana waxa kamid ah warnin aad isdaafaysiin oo biyaha zamzamka isku dhaafaysiin biyaha zamzamka meel laga cabo oo kadib laga sii baxo mid halka isku dhaafaysiin ayaa kala qoloma tahay walaalde seconds la joogana waa seconds hatta min dhama waxa si joogan ayaa wuxuu rabaa inuu qofku qolaadii ogaado waayo qolada markay ka soo baxdo marka waxay ka dhigan tahay sida ilaahay la sibaa kala duwanaysa mise mooyaan marka wiil kale aan garanay asaas la isaguna igu yiri maxay ahaday Djibouti markaan hay qoladii weydiinu si weydiinu sheegana wallahi waad fiicantiin buu de qof xun oo malanayaan qofku doono haduu qof bil aadan haduu yahay inuu qof xun yahay oo malanay عشان de qofkii uu ku amaanaya marka amaantaadi wax yani aniga han mahdi miicaad ama Umar Faarax ama Ali qof ku amaan wuxuu yahay laakiin qabiilku wuxuu doonaha noqdo wax uu qabiilkuna qof uu doorto ma hatta Facebook maalmahan ka arkay community idil oo samaystay oo anaga waalna xaqiira waxyaabooyin caynkaas ka hadlay anu waxaan aaminsanahay cidii wax xaqirtaa iyadoo taala laakiin adiga ilaahay cidi kuma diidana inaad naftaada horumarisid inaad dhaqaale ahaan horumarisid iyo inaad iimaan ahaan horumarisid ayadii quraanka maxay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'il litacaarafu waxa ka dhigan tahay ashaan markii baadiyaha la joogay qof markuu yimaado reer buu doondoonay reerka imanka street address baa imanka wax lagu ogaadaa laakiin bariga hore meeran street address ma jirin oo qofka lagu garay markaas qofka qabiilkiisa sheegay markaas la oranay reer hebel baa jiray bil reer hebel u geeyay inay gartaan ninka laakiin maanta wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila waxa kiyata ku filan waxa weeyaan in adeerka ilmaabtiga dad garanaysid you don't care the others markaas cid doonta baatay wax ka galay wax ma jiro inta kale waxa weeyaan aakhiro ninka maanta laandeeraha ama lasku amaanay waa ninka jidka siraad almustaqim fa umri doono weeyaan ee bila xisaab jirada ku galay waa ninka maanta kelmadda laandeeraha malaha laandeer uma qaatay yani malaha waxa ka malaha qof kale malaha geedka laamaha kala dhaadheer malaha mooyaan wax looga jeedo laakiin malaha waxay ka dhigan tahay malaha anaa ka fiican iyo malaha anaa ka dheer iyo wax caynkaas laakiin wax fiicnida maanta adduuniya aakhiro kala qaad aakhiro waxa weeyaan qofku waa qof bila xisaab jannada ku galaya ninka laandheero adduunkana hadii la soo alqaad adduunkana waa ninka magac leh waa ninka lagu qadarinayo aqoontiisa waa ninka lagu qadarinayo cilmigiisa
wallahi waxaan xasuustaa sheekh cabdirashiid cali soofi Djibouti bariyo dhaweyd buu yimid sida loo soo dhaweynayo sida dariiqa loogu banaynayo sida loogu sarakacayo wallahi billahi waa jircunis siyaasi ma aha waliba mansabka ilaa waliga uu sidan doonaa ilaa intuu dhimanayo uu sidan doonaa laakiin ninka siyaasiga ama ninka wax doonaya ama ninka isagoo qabiil wax ku sameynaya isagu waxan uu raadinayo wax waa temporary way laakiin aqoon iyo cilmi iyo diin qofka lagu qadarnay maanta waa forever maanta raga culimada ay markasto meel loogu yeero hotel ma bixiyaan diyaaradna ma bixiyaan flight ma bixiyaan intooda u badan hotel iyo flight iyo wax kasta walsin waa aqoontiisa weyn waa cilmigiisa weyn marka qabiilka doonti ahaw waa isgaarsiin kartaa martabad sharaf leh adduunkiina taawad gaari kartaa aakhirana siraad almustaqim ku tagi doontaa ragan kale isha baasaboorada wanaagsta imaka adduunaan marka international hadii la eego hadii aad Soomaali tahay eeg Soomaali dhexdeena dadka culimada iyo aqoonta iyo mansabka ayaa laandheera marka international la eegana airportada marka aad kori maxay aad tagays wallahi dhowr airport anigu waan maray madowga mar hadaan ahay Soomaaliga aanu eekay ma garanay anigu inaan Djibouti ahay iyo inaan Kenya ahay iyo inaan Soomaaliya ahay ma kala garanay laakiin had iyo jeer aniga waa la joojinay random check baa jira wax la dhaahdo oo markay saa maraan badad baa la joojiyaa oo gacantooda faraha la taabsiya inuu hub soo qaata iyo inuu mukhadaraad sameeyo waxaan ka sameeyay had iyo jeer waxaan aanu kala taabanay meesha doonto baa noqoto xataa inanka Suleymaan hadda dhii sheegay wuxuu ii sheegay wax weeyaan xaaskiisa ayaa malaha Dubai bay ka imanayeen oo Ingiriiska imanayeen iyadoo oo liin dheer saa loogu jiro kiyugiisa saa loogu jiro oo loo baasaboorka maxay la eegayo ayaa laba gabdho cadaana ayuu ragii Carabti ama ragii Filibiinaanta mees joogay ay ka soo dhex saareen oo yiraahdeen kale xaq mara gabadhan Soomaaliyeed ayaa waxay ku tiri ragii bay ku tiri maxaad iyaga aad maxay aad goonigu saaraysaa ama aad soo iyagu baasaboor European bay sitaano marka baasaboor European marka iyagu hore bay maxay waxoog waa clear markaas gabadhii kale ku tiri I have a UK passport bay ka tiri ambu waxaan sitaa bay ku tiri UK passport iyo sitaa saas way tuste markaas ninkii uu yaabo oo aamus gabdhihii cadaanka ayaa ninkii ku yiri maxaad gabdhahan aad u sii deyn weyd markaas uu aamusay gabadhii Soomaaliyeed baa ku tiri because I'm black and I'm a Muslim woman waan madoowahay maxay ruux dumar oo islaamana waana marka saadiradeed ayuu ku isir soocaya marka hadii aad baasaboorka adduunta dad seetid UK Europe Mareykanka dad seetid Soomaalinimadii iyo madowgii kaama haray marka baasaboor wax aad xataa ku faani kartaa ma jiro iyagu laakiin maanta dadka cadaankii laandheernimo ay ku faani karayaan waayo adduunka meesha ay tagaanba waa had iyo jeer waa kuwii la soo dhawoowayaan adigu laakiin Soomaali mar hadaa tahay meesha adduunta dad joogti where are you from I'm from Somalia aniga kula hadlaya markaan international markaan dibadda u baxo Djibouti waa wadan yar lama garanayo I'm from Djibouti Somalia baan ku raahdaa markaas Soomaaliya masiibo iyo alaabooyin iyo waxba qofka uga soo baxay marka adiga oo sida u sameeysan waxa u tiraahdaaba hebel baan ahay waxbaan ka fadli badan ayo laan dheer iyo laan maxay waxbaan ahay it's shame man it's shame on you walki Sheekh Idriisi markaas waa wax laga yaani laga yaabuye marka message kan wuxuu gaari doonaa kulli dhowr Soomaaliyeed inta u gaari doono baan la hadlayaa oo leeyahay had iyo jeer mustaqbalka inaad eegtaay ama wax aad adigu rabtaay waad eegi kartaa waana sawaran kartaa laakiin qof inuu ka yiraahdo mustaqbalkaagu saas uu eegay ama sidaa baa tahay ama wax aynkaas ah tahay wallahi waad baabin kartaa waanad baabin kartaa adiguna wax wanaagsan baad samaysan kartaa marka qof had iyo jeer waxa la yiraahdaa nin baa lagu yiri war bidaar baa leedahay bidaartu cidii arkasay dhibasaabi yiri sama saasay balaha maana anu mar hadaan arkeenani waxbay ma dhibaso laakiin adiga hadaad ka ashashaysay bidaartayda aday ku taala marka qofkii isaga adiga wax ku arka isaga u taala
laakiin adiga cid wax ku diidani adduuniya aakhiro ma jirto intaa hayga ahaato waano safaadna hayga ahaato ama kaftan hayga ahaato kelmadahana yaa wax loo qaadan laakiin anigu waa wax in aan Soomaali ka soo arkoon ayaan isleeyahay bal had iyo jeerna dhaqanmadu way kala duwan yihiin markaad meel markaad joogtid iyo meel kale markaad joogtid the way you talk kelmadaha su'aalaha weydiinaysid qisad kale aan ku soo gabagabeeyo jaamacad Masar marka aanu joognay aniga inaan kala reer Djibouti ayaa jaamacadda bilowgeedii waxa la dhigtaa xisaab baa la dhigtaa xisaabtaay aad bay noogu adkaatay ninkii baa macallinkii doctorkii baan ku niri duruus khusuusiye meeja waxaan maqalnay duruus khusuusiye waxa gaartay waxyaabanka casharka gooni loo dhigto ee jaamacadda marka casharka ku adkaado lacaga la bixiyo gooni loo dhigto macallinkii ama doctorkii sidoo noogu qeeyay dadka oo dhan noogu soo ururay waayo duruus khusuusiya Masar waxa laga yaqaana waa contraband ama waa black market yani wax shaaca laga qaada ma laakiin anaga Djibouti kursuutiyan baa la raahday waa wax dib lahayn oo xataa idaacada laga haysin kariya qofkii isagoo iskool ka dhigta ayaa casharkii buu fahmi waaya meel kala macallin kala jira oo ku dhiga xataa macallinkan meesha dhiga ayaa dib u dhiga inkastoo qaarday si xun u isticmaalaan laakiin anaga wax dib ay leedahay ma jirto laakiin Masar waa dib waa nin crime galo kale waa nin marka anagu maalintii markaanu arna iyaanahan marka kelmado su'aalo qof marka aad qolama tahay iyo waxyaal caynkaas oo miir waxa dhici karta kelmadan qolama tahay inuu wadanka laga dheelin ama laga isticmaalin marka inta aan ku soo gabagabeynayaa aad iyo aad baan salaamayaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh